halkan waa xanta wararka ku soo dhawaada warar falanqeyn iyo dhacdooyin aanu halkan ku baahino kuna falanqeeno waxyaabaha daawa doontaan haddii ala weyn raali ka noqdo waxa ka mid noqon doona xaaladda lascanood oo ciidamo hor leh la geeyay Soomaaliland ay geysay ciidankaasi oo kuwa hubeysan baraka xoogan oo ka bilowday xilli dhaqdhaqaaqii iska soo horjeeday wadaan Soomaaliland iyo Puntland Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland waxa uu yiri dani haddii dagaal ka joogi weydo soo soco shir jaraad ayuu ku qabtay Hargeysa waxa uu fariin hawada u mariyay Muuse Biixi Cabdi Saciidani waxaan soo gudbin doonaa fariinta loo diray Saciidani oo ahayd mid adag maxay ka dhigan tahay warbixin ayaa ku falanqeyn doonaa haddii ala weyn raali ka noqdo iyo gududii baarlamaanka Soomaaliya uu saaray xaaladda Laascaanood oo ka baqanaya in magaaladaasi ay gaaraan waxaan idin soo gudbin doonaa haddii ala weyn raali ka noqdo warbixin aan amurahaas ku falanqeynayno kuna faaqidi doono sidoo kale waxyaabaha daawa doontaan saaxiibada sida tooska ah oo nagu xiranow waxa ka mid noqon doona oo aanu barnaamijkan ku falanqeyn doonaa kuna faaqidi doonaa haddii ala weyn raali uu ka noqdo saaxiibada iyo asxaabta sida tooska ah halkan inoogu xiranow xaaladii ugu dambeeyay ee Laascaanood oo barnaamijkan intiisa badan ku falanqeyn doono kuna faaqidi doono markale kulan wacan oo wanaagsan ayaanu hawadeedii ka leenahay soo dhawaada oo la gareeya barnaamijkan sidoo kalena share gareeya oo qaybta hoose aragtidiina waxay idin la tahay noo dhaafa aynu ku bilowno daawadayaashii nagu xiranow Laascaanood gobolkaasi Sool xaruntiisa ciidamada Soomaaliland ayaa buuxdaafiyay Soomaaliland ayaana ciidamo kale oo dheeraad ah keentay kuwaas oo hubeysan qoryaha culculus baraka xoogan ayaa ka bilowday xilli habeenkii labaad uu weerar ka dhacay magaaladaasi waxa uu cirkaas ku shareeraya xaaladda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolkaasi Sool halkaasi uu ku dhawaad 10 maalmood ee rabshado ka socdaan kadib markii dilal aan la garanaynin cidda geysatay ay magaalada markaasi joogtay ka noqdeen Cabdikariin Nolol waxa uu markaasi kamid ahaa saxafiyiinta ama uu kamid yahay saxafiyiinta ka soo waranta ama ku nool Laascaanood waxa uu markaasi ka warbixiyay xaaladda magaalada waxaana uu sheegay in magaaladu laga qaxay oo dadku ay banaanka magaalada deegaameysteen sidoo kale wuxuu sheegay in Soomaaliland ay ciidan military ah oo aad u badan soo dhoobtay jidadka magaalada taasoo shacabku u suuragali weysay inay sii wadaan dibadbaxyada oo joogsaday labadii maalmood ee u dambeysay ama dhowrkii saacadood aynu soo tagnay wariyaan ku sugan Laascaanood wuxuu sheegayaa in xiisadu ay wada saameysay guud ahaan gobolka Sool xaaladda taagan cabsi badan ayay dadku ku abuurtay gaadiid badan oo dadka markaasi qaxinaya ayaa magaalada lagu dhex arkayaa wax ganacsi ana ma socdaan ayuu yiri isgaarsiinta magaalada ayuu sheegay in mararka qaar hawada laga saarayo iyadoo lacagaha laga isticmaalo gobolkaasi ay yihiin kaliya kuwa danabaysan ee telefoonada la isaga diro ee hawada la raaciyo Soomaaliland ayaa guud ahaanba internetku ka jartay gobolka Sool waxaana maalin isgaarsiin la'aan ah ay kadib dadka loo fasaxay ku hadalka iyo lacag dirista telefoonada oo kaliya taasoo ka dhigan in la hadda gobolkaasi Sool uusan internetku markaasi ka wacneen ganacsigii magaalada ayaa xidhmay sida uu sheegay wariyahan ku sugan gobolkaasi waxaana aad u yar dadka lagu arkayo gudaha magaalada Laascaanood iyadoo dariiq kasta ay askar military ah soo dhoobtay Soomaaliland gaadiidka qoysaska qaxinaya qaar ayaa ka imaanaya gobollo kale taasoo muujinaysa baaxadda barakac la socdo Laascaanood ama ka socda xiisadan ayaa salka ku haysa ku ganacsanaan la'aan maamul oo dadka magaaladu ay qabaan kadib markii Soomaaliland ay wax ka qaban weysay dilalkii ku socda hal doorka magaaladaasi haddaba Muuse Biixi waa madaxweynaha ama hogaamiyaha Soomaaliland waxa uu ka hadlay ka gadaal shir jaraa'id oo ku qabtay Hargeysa xaaladda gobolkaasi Sool gaar ahaan Laascaanood haddii dagaal ka joogi weydo Puntland soo soco ayuu yiri isagoo u jawaabayay Saciidani Soomaaliland ayaa dusha saaratay mas'uuliyadda dilka shacabka banaanbaxyada Laascaanood madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in ciidamadoodu ay uga dhaceen si lama filaan ah dowladda federaalka iyo Puntland ayuu ku eedeeyay inay iclaamiyeen dagaal ka dhan ah maamulkiisa isagoo u jawaabaya Dani iyo Karash ayuu yiri haddii dagaalka aad ka joogi weydaan soo socda waxaad ka heshaan baa leedihiin Dani wuxuu yiri xaq suuq ka dhacaya Laascaanood eegan mayno waanu ka dagaalamaynaa waan ku leenahay intii boosaaso ku dhimatay ee ka dhacday adiga iyo ina diyaano 5 goor ayay ka badan tahay ayuu raaciyay madaxweynaha waqtigiisu gabaabsiga yahay Puntland
oo adkaysan kari markaasi u adkaysan kari culayska siyaasadeed ee 24 saac la saaray ayaa shalay wuxuu shir saxaafadeed uga hadlay xaaladda Laascaanood. Dani oo warbaahinta kula hadlay madaxtooyada Garowe ayaa wuxuu yiri dulqaadkii waa iga dhamaaday, intaa wixii ka badan uma dulqaadan doono dumarka iyo caruurtayada hortayada lagu jiidayo. Isagoo hadalkiisa sii wata Dani oo si dadban uga dhawaaqay dagaalka dhana Soomaaliland ayaa raaciyay doorashadana waa la wadayaa, dagaalkana waa la wadayaa, labada hal loo diyaar garoobo ayuu yiri Saciida. Maamulka Soomaaliland ayuu cod dheer ugu baaqay inay joojiyaan beegsiga ay ku hayaan shacabka Sool oo uu hoosta ka xariiqay inay iyaga u madax bannaan yihiin go'aaminta masiirkooda. Wixii dadka reer Soomaaliland ay ugu caban jireen dawladii hore ee militariga Soomaaliya inay maanta iyaga sameynayaan wax aan la aqbali karin ayuu ku tilmaamay Saciidani. Dhawaqa Dani ayaa markaasi ku soo hagaagay kadib shir albaabada u xiran yihiin oo la yeeshay ku-xigeenkiisa Karash. Labada mas'uul ayaan isku aragti ka ahayn qadiyadan. In ka badan 40 qof oo u badan shacab ayaa ku nafayay shaqooyinka xarunta gobolkaasi Sool. Tan iyo toddobaadkii hore beesha caalamku ayaa waxay ku baaqday in nabad lagu dabaalo ama lagu soo dabaalo Laascaanood, wadahadalna la galo sida markaasi ay ka dhawaajisay ama ay tibaaxeen. Si kasta oo xaaladda noqoto, Muuse Biixi waa madaxweynaha maamulkaasi Somaliland waxa uu markaasi siyaabo kala duwan uga qaada dhigay arrimaha isdiidan ee uu wajahayo maamulkiisa. Xaaladda Laascaanood ka hadalkeeda ayuu siyaabo kala duwan markaasi kaga hadlay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, waxaana uu markaasi magaaladaasi ay tahay mid maalintii labaad degan kadib rabshadihii ka qarxay Salaasadii. Madaxweynaha Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax bannaanida Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo maanta hadal ka jeediyay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in Somaliland ay ku filan tahay xalinta qadiyadii ka dhacday Laascaanood. Wuxuu intaas ku daray in marka ay magaaladu degto ay ciidanku ka baxayaan. Wuxuu sidoo kale eedan u soo jeediyay maamul goboleedka Puntland oo uu sheegay inay dagaal iclaamiyeen. Wuxuu kaloo intaas ku daray in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku lug leedahay eedeyntaas ayuu jeediyay Muuse Biixi. Kursi horeysa guddi ayuu magacaabay gudoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe. Guddigaasi ayaa iminku sheegaya in aysan gaari karinin ama aysan tagi karinin magaaladaasi sida ay markaasi ka dhawaajeen oo ay sheegeen xubnahaasi guddida ah. Gudoomiyaha Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe guddigaasi ay uu magacaabay durbaba soo jeedinaya diidmada ilaa 10 xubnood ay ka kooban yihiin. Warqadda gudoomiyuhu waxa uu shaaca ka qaaday inuu guddigu u magacaabay inuu warbixin ka soo diyaariyo shaqooyinka ka socda magaalada madaxda gobolkaasi Sool ee Laascaanood. Warqadda ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha Sheekh Aadan Madoobe ayaa waxa guddida lagu faray inuu si degdeg ah u howlgalo kadibna uu warbixintiisa dib ugu soo celiyo golaha oo ugu dambeyn go'aan ka soo saari doono xiisadda ka jirta Laascaanood. Dawladda federaalka ayaa hore u cambaareysay rabshadaha ka socda Laascaanood kuwaasi oo sababay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad badan oo rayid ah. Xaaladda magaalada ayaa kacsaneed maalmahan iyadoo ay ka socdeen banaanbaxyo daba socday dil toddobaadkii hore loo geystay mid ka mid ah siyaasiyiinta deegaanka. Qulqulutooyinkaas ayaa sidoo kale keenay inay rasaas adeegsadaan ciidamada Somaliland taasi oo la xaqiijiyay inay ku dhinteen 20 qof iyo dhaawac 10 kale. Kacdoonka shacabka Laascaanood ayaa galay maalintii 10aad waxaana ciidamada Somaliland ay weli isku dayaan inay awood ku joojiyaan kacdoonkaasi xilli magaaladu ay markaasi dagaalkii ka dhacay xalayta kadib ay noqotay mid markaasi degan oo ciidamadu ay ku sugan yihiin fariisimahooda inkastoo magaaladu ay si weyn u buuxdhaafiyeen ciidamada sida la wariyay. Xubnaha guddidaasi ayaa sheegay in maamulka Somaliland ay maamulaan magaaladaasi oo xarunta gobolka Sool iyadoo guddidu ay sheegeen inay ka warhayaan dhibaatada shacabku inay u geysteen ciidamada Somaliland. xasarada ka jirtana aysan booqashadooda suuragali karin sida uu ka dhawaajiyay xildhibaan Cabdilaahi Bidhaan Warsame oo ka tirsan golaha shacabka isla markaana xubinka guddida la magacaabay baarlamaanka wuxuu sheegay inaysan tagi karin Laascaanood oo Somaliland ciidamo badan geysay balse ay xaqiiqaraadin ku dhex sameyn doonaan dadka magaalada ku sugan sida uu markaasi ka dhawaajiyay isagoo sheegay guddida ay dib warbixin ugu soo celin doonaan baarlamaanka Soomaaliya isla markaana wixii go'aan dib laga soo gaari doono nabadiino halkan waa xanta in la gareeyo saaxiibayaal.